أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وقت كستود كجرتين هايدين وعناضو إن نقطة قف متسامحة أما قف عفس بدن قيب وين بي كقاعدة قف كهرو سعود كيسة أما هرو مركيسة نولشا إن مر والبا أن نقطة قف متسامحة أو دب والبا أو لغو سو كيستي niyada kasii daaya dadkii ku soo geystay waa wax aad iyo aad u wanaagsan. ilaahayna inoo amaanay oo quraankiisa ku sheegay nabigiisu alayhi salaatu wassalaam inaad 10 ka qaadato wixii ku soo maray waxay ku noqonaysaa xaafis aad haray ugu sii socotid, waayo waxaad iska ilaalinaysaa mar walba in dibtii lagu soo geystay oo kale ayna dib kugu dhicin. waxaad noqonaysaa qof dhiiran, waxaad ka qaadaysaa adayg inaad noqoto qof dhib walba loo geysto dhaafi kara oo ka gudbi kara. waa wax aad iyo aad u fiican nolosha in yani aad barato skillka. wallahi wax ka fiican ma laha. adayga lagu sheegaynin maaha yani inaanad weligaaba ku fiin oo weligaa taagnaato, laakiin adayga lagu sheegay dhabtii waa inaad mar walba ood kufto inaad kacdid. waxaa jirta qiso yar oo ku saabsan inaad mutasaamax noqoto mar walba. inta ugu badan dhibaatooyinka waxa inta badan noo geystay yani dhibaatooyinka ama dhaawacyo badan noo koskara waxa noo geystay waa dadka noogu dhow, waa dadka ugu badan ee taras karayna nolosheena, waa dadka ugu badan ee soo dhaweysano, waa dadka ugu badan ee isa siino. waxa inta badan dhaawacyada ugu waaweyn nolosheena inoo geysta. laakiin inaad mutasaamax noqoto adiga ayay ku fiican tahay. qofkii ku dhibaateeyna aad iska saamaxdid, qofka wanaaga ku sameeyna aanad iloobin oo noloshaada baaldahaba kaga jiro ood ku qortid yani sakhrad ama yani aad ku qortid yani aad bay u fiican tahay. waxa lagu qoro dhagaxa iyo waxa dhul lagu qoro way kala duwan tahay. qisadani qiso yar oo kooban oo taa ka turjumaysa. waxa jira laba wiil oo asxaaba, labada wiil safar iyagoo ku jira ayaa meel saxaara iyagoo socda waxa dhacay inuu gaarigii ka banjaro. maadaama gaadiidkay la socdeen ka banjaray waxay dhex lugeeyeen saxaarihii si ay u helaan caawimaad. kadib iyagoo dhex socda saxaari ayaa waxa dhacay inuu dagaal soo kala dhex galay ama ay isku xanaaqeen islaayeen. kadib mid baa kii kala dhirbaaxay, kii la dhirbaaxay ayaa aad uga xumaaday. waxay sirisuu saaxiibkaagii kugu dhawaa oo maanta kuu dhirbaaxi karaa, isagoo aad uga xumaaday balse wax action aanan qaadin baa wuxuu sameeyay ciidii buu wuxuu ku qoray maanta waxa ay dhirbaaxay saaxiibkaygii nolosha iigu dhawaa ayaa ay dhirbaaxay. kadib safarkii bay iska sii wateen, waa sii lugeeyeen. kadib waxay soo gaareen meel mustanqaca, meeshaasi oo biyo ah ama ballay ah. meeshaas ayay markaa ku nasteen, biyihii bay cabeen, waa kuna dabaasheen. iyagii oo ku dabaalanaya ayaa waxaa dhacday in wiilkii markii hore la dhirbaaxay ay biyihii liqi gaareen ama uu ku qarqami gaaray ballaygii oo ku dhagay. saaxiibkii ayaa soo orday, gacanta ayuu soo qabtay, waa soo jiiday, waa kasoo saaray biyihii. saaxiibkii ayaa wiilkiibaa farxay, wuxuu dhahay waad mahadsan tahay, nolosheeda maanta waa badbaadisay. kadib intuu socday ayaa dhagax weyn oo yaalay meesha ayaa wuxuu ku qoray maanta waxaa nolosheeda badbaadiyay saaxiibkaygii nolosha iigu dhawaa. saaxiibkiiba markaa weydiiyo ka yidhi markii horena ciidda ayaad ku qoraysay, saaxiibka ayaa maanta ay dhirbaaxay, maantana waxaad ku qoraysaa meeshan sakhrada ama dhagaxan. marka ma ii sheegi kartaa waay sababtada ugu qortay maxay tahay labada jeerba? markaasuu yidhi markii hore dhibteedii geysatay waxaan ugu qoray ciidda say dabayshu markay timaado ay u masaxdo oon iska ilaawo, balse sakhradan waxaan ugu qoray si aanu nolosheedu dhan u ilaabin macruufkaadii samaysa iyo inaad ii badbaadisood maanta nolosheeda badbaadisay. marka waxyaabaha yani cibro waxay ku siinaysaa yani qisadan in waxyaabaha ina soo mara dhibaatooyinka laynoo soo geystay oo kale aan iska ilowno ay noqdaan waxay dabayluhu iyo zamanka kusoo dee isbebedelay, cimilada isbedelaysa ku ilowsiinayso. qofkii ku wanaajiyeen inaad weligaa iloobin ood ku qorato yani meel adag aad ku qorato. meel wax lagu qortana qalbiga ugu muhiimsan, waayo noloshaada qof walba oo wax ku taray qalbiga ku qoriyay marnaba ma iloobi sida maskaxdaada. qof kasta oo ku dhibaateeyna dhibtii lagu geystay waad xasuusanaysaa, laakiin qofkaasi qof saameyn ku yeelanaya noloshaada maaha ama wax dee atabaysid mogtahay ma noqonayo qofkaasi. balse dhibtii lagu geystay waad iska ilaawaysaa. taasi ayaana wanaagsan oo horumar lagu gaari karaa. marka
mar walba tasaamuxa aan badino si aan nolosha hore ugu socono casharna aan ka qaadano. aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.